xukuumaddu inay ka qabato arrimaha amniga tallaabooyin cadcad waad aragtaan maalin walba in la istaajinayo baabuur dad Soomaaliyeed isku qarxin raba waxaa laga sii qaadi doonaa tallaabooyin cadcad waad aragteen cashuurtii dalka laga qaadayay inay korortay oo ay ku korortay qasnada dawladda si mushaarka loogu bixiyo waad aragteen adduunyada qaabkay loola dhaqmi jireen inay soo ifbaxayaan tallaabooyin ah inay wax iska bedeli rabaan waad aragteen dunidu inay diyaar u tahay inay ku shaqayso talada ummadda Soomaaliyeed waad ogtihiin xukuumaddeeda in ay halka dhugi tahay in la isla xisaabto haddii aan rabno inaan ka baxno dhibaatada waa inaan ka leexanaa dariiqyada dhibaatada la geeyo sidaas daraaddeed waxaan idinka codsanayaa laba arrin kow sida ugu wanaagsan oo aad ku heli kartiin haddii aad tihiin reer Banaadir xuquuqda aad tabanaysaan waxay tahay idinkoo isku duuban inaad garab istaagtaan maamulka gobolka Banaadir intaad qabtaan inaad anaga noo soo gudbisaan idinkoo soo maraya isaga anna waxaan idiin ballan qaadayaa aniga iyo madaxweynaha iyo xukuumadduba inay la shaqayn doonto garab istaagi doontona Guddomiyaha Gobolka Benaadir aan Duqa Magaalada Muqdisho tan labaad aan rabo inaad ku codsado waxa ay tahay waa inaad ogaataan bulshada meeshaad uga jirtaan waxaad tihiin dadkii reer Muqdisho waxaad tihiin odayaashii qabiiladii madaxdii siyaasiyiintii dumarkii dhallinyaradii reer gobolka Banaadir waxaad tihiin astaantii ummadda Soomaaliyeed fiirsanaysa waxaad tihiin dariiqa ummadda Soomaaliyeed wanaagga ay ku mari lahaayeen waa idinka tallaabada idinku aad qaadaan ayay ku daysanayaan shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa marna inaadan iloobina mas-uuliyadda aad xambaarsantihiin Muqdisho iyo Banaadir keliya waad ka weyntihiin waxaad tihiin shacabka Soomaaliyeed iftiinka ay fiirsanayeen haddii aad rabtaan Soomaaliya markaa inay isku duubnaato kow waa inaad isku duubnaataan haddaad rabtaan Soomaaliya dawladnimo inay ogolaato idinku waa inaad ogolaataan haddaad rabtaan Soomaaliya inay ku dulqaadato idinku waa inaad ku dulqaadataan haddaad rabtaan Soomaaliya inay karafta iyo sharaamadeeda soo celiso waa inaad ka bilowdaan inaad aqbashaan dadka reer Muqdisho oo dhibaataysan in sharaftoodii iyo karaamadooda soo celiyo gudoomiyihiinu waxa uu joogaa wax ka yar 60 maalmood waxaad u baahan tihiin inaad siisaan waqtiga uu u baahan yahay oo ku tijaabisaan si uu soo celiyo xuquuqda aad rabtaan idinkana ummadda Soomaaliyeed idinkeena fiirsanaysaa haddii ummadda Soomaaliyeed idinka idinka aragto cabsi aad ka qabtaan dawladnimada tafaraaro dhexdeeda walwal horumar la'aan marka waxa u soo baxaya dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sawir ah in dawladnimadu ay aad u fogtahay أنا أدين شيء دولة لماذا ويدولة دولة لماذا يكرامات ومدة الصوماليات افتين كذي بعض سلاس ثلاثة وحن مانتي الكويبت إن الدين ما حد عليه سلاس شرف له وضل كم أوسو دلاشين يجي أوسو هرسان حوق يحوالات أوسو بحسان حان الله يا الله كين وحالين صوت التليفون في قدامي waxaad joogtaan tallaabooyinka ugu dambeeyay ummadda Soomaaliyeed dhibaatada uga baahan u istaaga qarannimada Soomaaliyeed garab istaaga gudoomiyihiina wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh